وبلابي دونا وقت يقولون صعدا دكتور سود وإن شاء الله تعالى قصعه بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ عمر وايد سلامي adiga iyo walaalaha kale iyo dhammaan walaalaha Soomaalida dal iyo dibadda jooga ee ina dhageysanaya amma baad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli inta ka soko waxaan ku salinaa nabigeena Maxamed alayhi salaatu wassalaam xalay waxaynu ku joognay hadii aan si kooban uga soo hadlo jiritaanka Ilaahay oo nidhi lababa waynu ka hadli doonaa fitriyan iyo aqliyan si guud waxaynu uga soo hadalnay xalay fitradii waxaan nidhi topicani dabcan waa fudud yahay oo ummad walba rabbi waa soo aaminsanayd ummad atheist la yiraahdo weligeed ma jirin referencesyadii maraajicdii taariikhigii iskugu jiray mu'arrikhiin ama taariikhyahanno muslimiina iyo kuwa gaala aba waan sheegnay Will Durant uu ka mid yahay Shahrastani uu ka mid yahay Ibn Rushd uu ka mid yahay Dr. Andrew Newberg intaasoo dhanba iyagoo intuba wada sheegay in xadaaradii ummad bilaadiina aynay weligeed adduunyada soo marin ummadaasoo dhanna waxay ilaahay ku taqaanay wuxuu ahaa fidrada ka ku xigta ee ay ilaahay lagu garto waa caqliga xalay fidrada jiritaankeeda waxaynu ku sugnay axaadiistii iyo quraankii sidoo kale waxaynu soo adeegsanay amaba aynu yani caddayn ahaan iyo supporting evidence caddayn taageero aan aynu kaga helnay ahaan inay jirto in bini aadamku uu yahay mid ku fidran oo ku dhasha ina uu rumeeyo jiritaanka ilaahay iyo nolol dambe oo aakhiro la yiraahdaba marka taasi waxdooda absolutely xalay intaan joogay cid alla cid ka keentay ma jirin waana hubaayo laguma dhaco lagamana keeni karo way caddayntaan keenay baa ka ballaanaydba in la hor istaago intaa markaan ka imaado waxaa inoo hadhay inaynu isla fahanno jiritaanka ilaahay iyo caqliga waxaan xalay idiin sheegay fidrada markaan ka hadlayay in ma aragtay dadka badankoodu aanay u baahnayn inay adilla caqliya ay sii daba socdaan amaba ay dhegeystaan doodo falsafadeed ka ballaaran in la caddeeyo oo waxa weeyaan maaragtay waa shay ka cad in la caddeeyo jiritaanka ilaahay saas darteed ummadaasoo dhan ee taariikhda soo lahaydba fidriyanba ay ku taqaanay inaguna si fidra ah baynu ugu dhalanaa cid alle cid maaragtay dafiri kartaana ma jirto fidrada jiritaankeedii iyo sida ay ilaahay ummadda ugu hagtana xalay waynu kasoo hadalnay marka ilaahay rumayntiisu wax inagu dhex abuuran inay tahay waa mid diinteena iyo turaadkeena quraan iyo xadiisba ay ka markhaati kacayaan sidoo kale uu saynisku ka markhaati kacayo caddayntaasi aan labadaba u keenay waxa weeyaan mid aan la hor istaagi karayn waxaana idinka muuqata xalay cid dafirtay ma jirto xataa malxidiinta joogtay waa ay ku qanceen in maaragtay ay tahay waxani wax ku dhex abuuran intaa markaan ka imaado jiritaanka ilaahay ee caqliga markaynu u daadegayno waxa iyaduna muhiima inaan isla garan caqligu waa maxay caqligu ma aha maskaxda ma aha maskaxda waxaa la dhahaa brain caqligana af ingiriishka waxaa la dhahaa mind labaduba waa laba kala baxsan oo kala duwan maskaxdu waxa weeyaan maadi waa shay material ah waxay ka samaysan tahay unugyo la yidhaahdo neuronskaasi dhammaantood waxa ku wada hadhaadhaysan ama baan idhaahdo haddii aad sii jajabiso oo aad sii yaryarayso unug walba waxaad ugu dambeyn ka gaari doontaa carbohydrates carbon hydrogen oxygen iyo nitrogen kuwaas baad ka gaari doontaa kuwaasi waxa ay yihiin elements waa curiyaal laga helo dabiicadaasi laga helo kana mid a curiyaasha periodic table-ka bini aadamkana maanta meel walba uu joogo jidhkiisa haddii la furfuro intaa unba loogu tegi doonaa su-aashu waxa weeyaan intaasi iyagu ma tahay wax xoraamay elementskan iyo curiyayaashan xataa iyada maskaxdu qaabka ay u shaqayso waxa ay ku shaqaysaa iyada oo adeegsanaysa ion channels waxa la yidhaahdo yacni isbedbedelka isbedelayaan curiyayaashani iyaga oo chargeskooga iyo gradientka ay ku xidhan tahay yacni so haddii gudaha selka uu ku badan yahay so xeerasha physics-ka lagu dhigto secondaryga waxaa ka mid ah like charges attract unlike charges attract like charges repel so waa xeer physics-ka ah in labada shay ee isku danabka ah isku positive charge labaduba ay yihiin inay yihiin laba shay oo isku soo yani kala dida labada isku midkii labada kala duwan positive iyo minus ama plus iyo minuska kala wata laba isu soo jeetay inay yihiin maskaxda waxyaabaha ay ku shaqayso waa xeerasha physics-ka weeyaan xeerasha physics-ku waa kuwo waxaa la dhahdaa waa deterministic waa kuwo natiijo go-an hela maanta haddii aad isku qasto acid iyo base dee ugu dambayn water waa resultiga aad heli doonto ama mid ka mid a waxyaabaha aad heli doonto so in alla intaad doonto isku qas male xorriyad ay kaga gudbaan qaanuunka u go-an ee ah inay soo saaraan natiijadan sodium iyo chlorine
chlorine oo group 7 iyo sodium oo group 1 haddaad isku geyso 1 milyan oo jeer haddaad isku geyso waxa ku soo bixi doona sodium chloride waa milix 10 milyan oo jeer isku gee milixda unbaad heli doontaa 120 bilyan isku gee milix unbaad heli doontaa maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay waxa ay ku socdaan waa xeer maadi ahaan u dejisan oo physics ah oo ayna sinaba u seegi karin mar haddii ayna xeerashaasi dhinac uga mari karin waxay ka dhigan tahay xorriyad male ee waxa hagayay waxa weeyaan qawaaniinta ama sharciyadaasi physics-ka ee uu adduunku ku kala socdo ayuunbaa iyagana hagaya maskaxdeena iyo unugyadeena jirkana haddii la yaryareeyo intaas unbaa loogu tegi doonaa marka haddaba waxa weeyaan mid baa iyaduna su-aal mudan waxa weeyaan maxaynu u leenahay caqligu ma ahin maskaxda amaba waxaan idhaahdo maxay daruuri u tahay inuu caqligu noqon waayo maskaxda waxay daruuri u tahay doodeenna ah ma anigaa saxsan mise adigaa saxsan yacni ma atheistka saxsan allakoodka mise waxa saxsan qofka mu'minka ah markaynu labadaasi ka doodayno waxaynu halkan maxaadiriyo wax kasta u qabanayna waa maxay waa inaan isku qancino so halkan waxaad ii dhegaysanaysaan si aad yacni wax u fahantaan dabadeedna aad ogtihiin idinku inaad xor tihiin oo aad caqligeena wax ku kala shaandhaysan doontiin ugu dambeynna aad kala bixi doontaan go-aan aad xorriyaddiina iyo caqligiina ku qaadateen yacni halka waxaad u joogtaan idinkoo og inuu caqligiinu yahay mid xor ah bedelmi karana yacni mid xor ah oo xorriyad u leh inaa uu ka tago decisionkiyo go-aanka ah ee aad maanta taagan tahay inaanad tagto go-aanka b xorriyad aad e kaga tagtood b ku doorato inaad leedahayna waad u timiday laakiin maskaxdu iyadu wax xorriyad ah male oo maxay ka samaysan tahayba waxay ka samaysan tahay wax ugu dambeynaya haddii lasii hoos loo sii dhaadhaco asalkeediyo saaskeediyo waxa ay ka samaysan tahayba wax xorriyad ah ma ahayn so xorriyad sidee kugu deeqi kartaa shay aan xorriyad ahayn laakiin waa daruuri si uu caqligu go-aan u qaadan karo oo uu mowqif u bedeli karo waana halka loo imidayo mulxidku rabo uu leeyahay markan uu doonayo inuu inaga gado ilxaadkiisa wuxuu doonayaa inuu inoo fahansiiyo oo uu wuxuu ku xisaabtamayaa caqli xor ah inaan leenahay oo aanu waxaan aan haysano kaga tegno waxa uu haystana aan ku qaadano cagsiguna waa sidaasi la mid a marka taas ayuu daruuri u tahay in caqligu uu noqdo mid xor ah oo ka madax bannaan xeerasha physics-ka xeerasha physics-ku waxa ay ku shaqeeyaan shayadan maadiga ee materialka ah shayadan maadada ahna wax xor ah ma ahin maadaamayna dhinacana uga fakan karin xayndaabka xeerasha physics-ka natiijada ay kugu hagaana ay tahay mid already la yaqaan oo cayiman oo meel kugu hagaysa sidaa aan tusaalaha idinku siiyey ee had iyo jeer sodium iyo chlorine haddii laysku geeyo ay tahay uun qasab natiijo ahaan inay isla aado milix waxaan ahayn ma soo saari karto so sidaasi la mid a waxa weeyaan laakiin adiga caqligaagu waxa weeyaan mid aad ku xisaabtamayso inaa uu maantana isbedeli karo inaa uu isbedeli karo xataa environmentiga uu ku xeersan yahay uu kasoo horjeesan karo in adiga oo ummad 1 bilyan iyo dheeraada oo muslimiina ku dhex korayo kusoo barbaaray inaad berri diin ka duwan aad qaadan karto in ma aragtay adiga oo ummadda masiixiyiinta kusoo dhex kora aad berri muslim ka dhex noqon karto waxaasoo tusaalayaala taariikhda iyo waaqicaba oo wax ka muuqda xorriyaddaa uu qofku wax ku dooran karayaana waxay daruuri u tahay ina ay jirto waa laazim ina uu caqliga iyo maskaxdu ay kala noqoto laba kala madax bannaan si xorriyaddaasi aad wax ugu baadho aqoon kororsina u samayn karto aanad xaal iyo xaal aad go-aan aad iskugu badbedeli kartood mowqif ka dhaqaaqi karto mowqif kalena aad tegi karto marka caqligu isagu ma aha mid ay hagaan xeerasha physics-ka caqligu muxuu sameeyaa caqligu wuxuu sameeyaa wax sababayn buu sameeyaa waxa uu caqligu sameeyaa reasoning buu sameeyaa maadadan aan idin sheegay maxay samaysaa reaction falgal bay samaysaa sodium iyo chlorine markaas aad dhigto way isla falgalayaan ugu dambeynna maxaa soo baxaya natiijo go-an oo ah milix baa soo baxaysa isbedbedel male inta jeeraad doonto haddaad isbarbar dhigto waana xeer physics oo ayna dhinacana u dhaafi karin laakiin caqligu muxuu sameeyaa caqligu reasoning buu sameeyaa waxbuu sababeynaya waxbuu baarbaaraya reasoningkuna ma aha shay maadada lagu yaqaano ama shayga materialka ah ee maadiga iyo qura ee la taaban kara ee ma aragtay waxa aynu arkayna uune ka samaysan elementyada loo burburin karayo elementyadaasoo iyaguna ay hagayaan xeerasha physics-ka shaygu hadduu intaasoo qura yahay kama madax bannaanaan karo xeerasha physics-ka si uu uga madax bannaano xorriyad u yeeshana waa qasab inuu noqdo maxay immaterial maadaama shaygii materialka iyo maadiga ahaa aanu dhinacna xayndaabkaasi xeerasha physics-ka aanu dhinacna u dhaafi karin natiijadiisuna ay tahay mid go-an waxa uu samaynayna ay tahay uun falgal iyo falcelin balse aanay ahayn wax sababayn iyo reasoning iyo qanaaco
aanay ahayn. caqligana maxaa nidhi waxa uu sameeyaa reasoning ma sameeyo reaction sida maadada. ta kale waxaa jirta ma aragtay waad odhan kartaa waxaa jirta xanuuno maskaxda ku dhaca oo qofka haddii uu waasho waxaan idhahnaa caqligii baa ka tegey ama qof uu maskaxda wax kaga dhaceen oo ma aragtay caqligiisi iyo maankiisi uu isbedelay baa jirta. taas kama dhigna in caqliga uu maskaxda yahay. taas waxay ka dhigan tahay in uu caqliga uu isagu adeegsado maskaxda. eega haddii ma aragtay dhishku kaa xumaado dee tvgaagu sideedii wax usoo saari maayo. informationkii iyo macluumaadkii iyo barnaamijkan aanu eega tiktokta ku duubayni waa waxa wifiskiisa iyo ma aragtay mawjadihii qaadayay ay satellaytyada ku baahsan yihiin. in alla cid kastoo taleefon hagaagsan wadatana si fiican bay usoo gudbaysaa macluumaadkaasi. laakiin haddii adiga taleefonkaagu uu xun yahay si fiican kuusoo gaari mayso. caqliguna waa saas oo kale, waa mid ka madax bannaan isagu aaladan maskaxda oo ah iyadu mid soo gudbinaysa oo caqligu u isticmaalo inuu fariintiisa uu ku gudbiyo, waana mid ka madax bannaan. waxaa jirta nin oo maaragtay neurosurgeon oo waxa uu sameeyey experiment. waa dadkan qallinada maskaxda sameeya. waxa uu sameynayay tijaabadaas oo uu ka dan lahaa inaa uu ku kala ogaado caqliga iyo maskaxdu ma isku mid baa. marka waa tijaabo cilmiyeed. waxa uu ku qoray book uu la yidhaahdo mystery of the mind. marka tijaabadiisaasi waxa uu sameeyey bukaan baa wuxuu sameeyey laftan madaxa ee iskolka ayaa uu qalliin ku sameeyey uu ka dhex saaray. maskaxda waxaynu nidhi waxay ku shaqaysaa habkaas sidaa maadada u shaqaysaa. waxay ku shaqaysaa electrical impulses ama danabayn ayaa ay ku shaqaysaa, yacni danabyo electroniga ayaa ay ku shaqaysaa maskaxdu. that's why dad badan aad u aragtaa marka la qabsado in gariir badan ay sameeyaan, waayo dhaqaaqii ayaa xadka ka batay ayo maxaan ku idhaahdaa neefyada saamayntii u geysanayay oo ka baxsan tii caadigiiyo jirka ku jirtay. marka waxaa dhacda wuxuu sameeyey wuxuu soo qaaday electrodes ama qotino danab ah ayaa uu soo qaaday. dabadeedna waxa uu taabanayay meelo kala duwan oo maskaxdii ka mid a. maskaxdii qofku way qalan tahay, waxa uu taabanayay meelo kala duwan oo maskaxdii ka mid a. meeshii gacanta u qaabilsanayd ayaa uu taabanayay. marka muxuu doonayay inuu arko gacantii ina uu bukaankii dhaqaajiyo. markuu taabto gacantii bukaankii waa dhaqaajinaya. laakiin bukaanka wuxuu isagu ka lahaa waxaad samaysaa gacantaada hore u fidi. so tusaalaan idinku tusinaya. gacantaada hore u fidi buu ka leeyahay. wuxuu samaynayaa maskaxdiina halkii u qaabilsanayd inay ma aragtay gacanta iyo ka mas-uul ahayd xubin gooniya oo jirka ka mid ah ayaa uu ku daarayaa danabkan. marka uu ku daaro waxaa dhacaysa in ay gacantii dhaqaaqdo. laakiin go-aankii bukaanku waa maxay? waa inuu gacanta fidiyo. halkaa wuxuu ka arkay go-aanka uu shakhsigu caqligiisa uu ku qaadanayo inuu yahay mid ka madax bannaan ta'tiirka iyo ma aragtay saamaynta maadiyad ah ee maskaxdani ku dhalinayso marka la isticmaalo danabyadan. so waxaanu isticmaalaya waxay saamaynayaan oo ay wax ka bedelayaan halkii u qaabilsanayd maskaxda shaqo gooni ah oo jirka ka mid ah. so gacantii inaa uu soo laabo meeshii uu kasoo laabi lahayd ee soo laabsiin lahayd ayaa uu ku qabanayaa danab daaraya meeshaasi oo maxaan ku idhaahdaa dhaqaajinaya ama maskaxdii signalis u diraya siinaya inay gacanta soo laabto. gacantii waa ay soo laabmaysaa, laakiin qofkii iyo shakhsiyan isagu wixii uu rabay ee go-aanka ahaa waa maxay? waa mid ka madax bannaan saamayntan dhacaysa. marka waxa kala laba ah saamaynta maadiyad ee uu isagu gacantiisa ku geysanayo iyo maxaa kala baxsan iyo waxaa kala baxsan go-aankii uu qofku caqligiisa uu ku qaatay. taasina waxa uu kala soo baxay natiijadaasi oo Nobel Prize lagu siiyey. waxa uuna ku gaadhay inay kala yihiin laba kala madax bannaan waxa la yidhaahdo caqliga iyo maskaxdu. xataa Nobel Prize-ka markii la wareysanayay tusaalayaal cajiiba runtii waa bixiyey. wuxuu yidhi ma aragtay hadday caqliga iyo maskaxdu isku mid yihiin, maskaxdu xilliga ay ugu activesan tahay waa xilliga ay qofku seizure uu samaynayo, gariirka uu samaynayo. dadkan dariiqyada ku dhaca ee gariirka samaynaya oo kale hadduu danab leyd ku qabsado oo kale. so markaas waa xilliga ay maskaxdu ugu activesan tahay ee jirkii meel walba ay kaga dhaqaajinayso. qofku xilligaabuu ugu maskax lahaa buu kuleeyahay hadduu mindka uu yahay maskaxda. oo xilligaasi ma aragna dad calculus iyo xisaabaad ka shaqeeya xilligaasi ma jirto, bal cagsiga maba xataa war isku hayntaa ka tagta, kaadiduna way dhaaftaa. marka maskaxda iyo caqliga waa laba kala duwan oo kala baxsan. taas baa uuna kusoo gaadhay go-aan. ta kale ee aan idinku daray waxa weeyaan maxaa uu yahay caqligu? caqligu waa wax lama arkaan, waa waxaan maaddo ahayn. maadada maxaynu nidhi? maadadu waa shaygaa la taaban kara elementyada loo jajabin kara maskaxdu ay ka samaysan tahay. maadaduna waa shay u hoggaansan sharciga physigiska iyo xeerashiisa. shaygu hadduu xeerasha physigiska u hoggaansan yahayna waa deterministic, waa xatmi. natiijo go-an buu ku geeyaayo kuma geeyo xorriyad. haddaba
ilxaadku bilowga iyo qeexidda caqliga ayaa uu ku jabay. qofka mulxidkii marka uu kuleeyahay wax ka baxsan materialkan ama ruux iyo ma aragtay wax lama taabtaana oo ma jiro marka uu kuleeyahay, waxaa ka dhalanaysa qaladkan oo caqligaasi ma aha mid la taaban karo, ma aha mid maadiya oo materiala. haddii uu ahaan lahaana ilxaadkaagana lama caddayn karo. yacni ilxaadka atheismku waxa uu keliya haddii uu run yahay, haddii uu run noqon karo, waa haddii uu been noqon karo. yacni waa hadal isdiidaya, laakiin hadiin fasiro. goormuu atheismku run noqon karayaa? marka shay maadada aan ka baxsanayn la waayo. yacni marka wax walboo jira uu yahay maadi ama material uu yahay. wax walba haddii uu material yahay, xataa caqliga haddii uu material uu yahay, maxay u wada hoggaansan yihiin sharcigii iyo xeerashii physics-ka? natiijo go-an bay ku hagan yihiin. sidaa marka labadaa maade ee sodiumta iyo colorinta lasoo bandhigo ay qasab tahay inay milix ku geeyaan, ayaa ay isagana qasab kugu tahay mindkaagaasi haddii uu yahay mid xeerasha physics-ka u hoggaansan. dee anigana waxaan ku qasbanaanayaa inaan muslim noqdo, isagana waxaan ku qasbanaanayaa inaa uu mulxid noqdo. therefore maxaa ka baxsan labadayadii midna xorriyad ma haystee, mid walba maxaa maamulaya oo uu u hoggaansan yahay? mid walba wuxuu u hoggaansan yahay xeerashaas physics-ka ayuu u hoggaansan yahay. so kanna xeerashaasi physics-ka hagaya ayaa caqligiisii ku hagoogeeyey ilxaad. kanna halkee bay geeyeen? islaam bay geeyeen. ma jirtaayo kani ma ka iman karaa oo kan ma tegi karaa? ma tegi karo. waayo marka horeba xorriyad kagamuu tegine maxaa geeyey? xeer aanu dhinacna u dhaafi karin oo ah xeerashii maadada ayaa ku qasbay inaa isagu dhinacan ku dhammaado point A, kanna point B geeyey. marka xorriyad meesha ay ka baxsan tahay, fikirna lama qaadan karo, fikirna lagama tegi karo. marka ilxaadku haddii uu sax yahay, weligiina lama caddayn karo. waayo qofka mulxidkaana wuxuu ku qasban yahin inuu mulxid yahay, qofka mu'minkaana inuu mu'min yahay buu ku qasban yahay. dee wada hadal micno ma samaynayo haddaan xorriyad aan go-aankayga ku bedelaa ayna jirin, oo aanan dhinacna u khilaafi karin xeerashii maadigee jiray. dee waxa weeyaan ma noqon karo, go-aankayga ma bedeli karo. marka micno ma samaynayso inaan 10 doodood aan soo bandhigo. marka haddii uu caqligu aad qirto inuu yahay, si aynu ilxaadkaaga u dhegaysano, oynu wax aad sababayn karto uu yahay aan kaaga qaadano, waa inaad horta qirtaa inuuna caqligu ahayn shay maadiyo la taaban karo materiala. waa inaad qirtaa inuu caqligu yahay shay aan la taaban karin, aan ka samaysnayn waxyaabaha maadiga ah ee materialka ah ee dhammaantood u hoggaashan xeerasha physics-ka. haddii aad taa qirtana, waxaad qirtay shay maadada ka baxsan inuu jiro. marka hadhow ruuxna ma dafiri kartid, mar haddii aad sugtay caqligu inuu yahay mid ka madax bannaan xeerasha physics-ka oo aan ahayn maadi. waana sida keliya ee haddii aad rabto ilxaadkaaga inaad nagu qanciso, waa inaad horta ka tagtaa oo aad ka tanaasushaa mabaadi ka mida mabaadi'diisii oo ahaa laa shaya ila almaada. wax aan material ahayni ma jiro ayaa tiri. wax walba waa maadadaas iyo atamyadaa la jajabin karo ee gunta looga gaari kara, dhammaantood u wada hoggaansan xeerasha physics-ka. haddii uu haddaba caqligu taas yahay, ilxaadkaaga ma caddayn kartid. meel niqaash aad dood soo bandhigi kartaana ma jiro, waayo xorriyaddii baa dadka ka qaaday. xorriyad haddiina jirinna adna go-aankaaga ma bedeli kartid, kana go-aankaaga ma bedeli kartid. marka famaa baalu niqaash, maxaaba markaa laga wada doodi? si loo wada doodo waa inaad ka tanaasushaa oo tiraahda atheismku waa been, ilxaadku waa waxaan jirin, maskaxda iyo caqliguna waa laba kale madax bannaan, caqliguna maado ma aha. maalintaad tiraahdo wax maadada ka baxsan baa jira oo caqligu maado ma aha, waxaad isku furtay inaad soo gabagabaysay albaabkaagii atheismka. oo mar haddii aanu caqligu maado ahayn oo shay ka baxsan maadada uu yahay, dee waxa weeyaan ilaahayna waa waxa immaterial oo dhan, malaa'ig, wax alla waxaan maadi ahayn oo dhan waxaad ku dafirtaa kuma soo hadhin mar haddii aad caqliga qirto. marka caqligu ma aha shay material ma aha. maadaamuuna material ahayn, uuna ka madax bannaan yahay maskaxda oo iyadu maado ah, oo aynu sidaanu usoo sheegnay imika aynu nidhi xataa Nobel Prize ayaa lagu qaatay oo scientific access wayniga, yacni tusaale sayniseedna idiin soo qaatay. marka haddii aan isku soo koobo oo qodobadan iminka ka hadlay aan isku soo yar duuduubo, waxa weeyaan si shay xaqiiqdiisa looga sal gaadho oo aqoon natiijo run ah oo wax ku olana loo gaadho, waxaa daruuri ah kow inay jirto xorriyad lagu kala saaro runta iyo beenta. haddii ayna jirin xorriyad aan anigu runtana ku raaci karo, beentana ku diidi karo, dee waxaan ahay mid u hoggaansanuun maadada iyo materialkaasi. sidaa sodiumta iyo colorinta xor ma ihi oo go-aan ma samayn karee, waxa la wixii xeerashaas physics-ku igu hagaan uma tegi karaa. taasi haddii ay timaadana, dee fikir baa fikir ka saxsani wax iman kara ma aha.
waayo wax lama reason garanaya maxaa nidhi reaction iyo falgal unbaa la samaynaya iyo falcelin ta labaad ee iyaduna muhiima waxa weeyaan inuu noqdo caqligu mid ka madax bannaan xeerasha fisigiska ee maadiga ah iyaduna waa daruuri waayo haddii ay hagayaan xeerasha fisigisku maxaa nidhi xorriyad kuma hagaane maxay ku geeyaan natiijo go-an oo laysla yaqaano halka ay ku dhammaanayso sida layskula yaqaano sodium iyo chlorine markastoo laysku geeyo inay milix soo saari doonto waa natiijo go-an oo xatmi oo deterministiga marka wax alla wixii natiijadaas xatmigaa ku geynayaana muxuu kaa saarayaa xayndaabkii xorriyaddu kaa saaraya haddii aad xorriyad aad wax ku qaadatood wax ku diida aanad lahayna dee fikirkaygan aan maanta dhan kuu sharaxaya micno ma samaynayso oo anunbaa isdaalinaya mar haddii aanad lahayn xorriyad aad ku qaadato ood kaaga kaga tagto ta saddexaada iyaduna muhiima maadaama ay maadadu tahay mid aan iyadu ka bixi karin oo materialko dhan wuxuu u hoggaansamaa xeerasha fisigiska marka maadaamay tahay mid iyadu maadadu ama materialku mid aan ka bixi karin xayndaabkaasi xeerasha fisigiska dee waxa weeyaan maskaxduna ay tahay material ugu dambayn maskaxdu ma aha caqliga mayla fahamteen so maskaxdii waa materialka iyo maadadoo dhanna xeerasha fisigiska u hoggaansamaa dhinacan uma dhaafi karaan xorriyadna male caqliguna maxaa nidhi waxbuu reason gareeyaa waxbuu xorriyad u baadhaa waana sida keliyayna ku wada niqaashi karneen hadalkeena ku bilaabi karno adiga iyo qof ATC hadalkiina waxaad ku bilaabi kartaan inaa uu horta beeniyo isagu ilxaadkiisa marka haddii aan qaab yaroo deduction aan usoo dhigo waxa weeyaan waa yani maadadu xor ma ahin mana noqon karto oo kama bixi karto xayndaabka fisigiska waxaan ugu celcelinaya pointigaas waa muhiim waayo halkaas wada hadal haddii aad wada galaysaan mulxid oo uu taaqiro waa dhammaatay marka maadadu yani xor ma ahin mana noqon karto oo kama bixi karto xayndaabka fisigiska iyo xeerashiisa caqligu si uu natiijo run ah ama saxa u gaadho waa baramiska labaad waa inuu noqdaa mid xor ah baramiska saddexaad caqligu ma ahin maskaxda maadaama ay tahay maskaxdu maxay maado caqligu si ka madax bannaan xeerasha fisigiska ayaa uu wax u baadhaa muxuuna sameeyaa reasoning baa uu sameeyaa sidiisana waxa uu wax ku gaadhaa ayuu natiijo ku gaadhaa waa reasoning falgal iyo reaction ma aha ugu dambayn conclusionkaygu waxa weeyaan caqligu ma ahin maskaxda haddii caqligu ma ahin maskaxda aan idhaahnana ilxaadku halkaabuu ku gabagaboobay inuuna caqligu maskaxda ahayna daliil sayniseed noonu keenay daliil caqliyeed noonu keenay intaa baanu ku dhammaaday atheismku waaba ta koowaade caqliga laga hadlayay uuna pointigaasi haddii aan ka tago caqligan haddaba aynu ka hadlaynayn maanta sharaxayno micno ma leeyahay haddii aanu jirin ilaahay ma noqon karaa caqliga wax laysku hadlayn karo oo lagu tusaale qaadan karo amaba lagu go-aan qaadan karo go-aamadiisa laysku hagi karo maalin walba waad soo baxdaa adiga oo madaxaaga iyo caqligaaga iyo adeegsanaya ayaad waxyaabo badanna aad u diidayo tiraahdaa waxani maangal ma aha waxana waa maangal waxyaabo badan lagaama dhaadhicin karo waayo caqligal uma aragtid waxyaabo badanna waad ogoshahay noloshaadaanad ku salaysaa waanad ku dhaqantaa waayo waa caqligal bay ku yihiin haddaba caqligan aad sidaa iskugu hadlaynaysa noloshaada dhan aad ku dhisayso ee hagaya ee go-aanadaadii noloshaadii guurka ahayd ubadkaagii noloshaadii bulshada alla noolayd iyo xilkaagii iyo status iyo mansib kastood gaadhaba caqligaagaasi hagayay ma yahay mid qiimo yeelan kara haddii uu atheismku true yahay amaba haddii aanu ilaahay jirin waxaan tusaale idin siiyo sababta aanu qiimo u yeelan karin waxaad ka soo qaadaa waa sidii xalay aan idin siinay oo kale akhlaaqdu sida ayna qiimaha ay ku beelayso ayuu caqliguna ku qiimo beelayaa haddaanu ilaahay jirin waana sida tan haddii caqliga markaanu leenahay wuxuu ka imiday ilaahay waa tusaale yaroo ka dhowhan ku siiyo waa aniga oo gurigayga jooga jaamacad baan dhigtaa kasoo qaad jaamacaddaas aan dhigto brofesorkeeda ayaa email iisoo diray wuxuu iga idhi imtixaan ayaad leedahay maalinka sabtida intaasoo jabtarna waa uu ku jiraa ee iska soo diyaari messageka iyo hadalkaa isoo gaadhay waa hadal la fahmi karo waa hadal ka imiday qof yaqaana waxa uu qorayay waa hadal ka imiday qof yacni garan kara masiirkayga waa hadal ka imiday oo mudan inaan ku dhaqmo oo anigu dee imtixaan baan galayaa sabtida waxa uu iigu sheegayaa haddii aan geli waayena maxaa dhici doona dee waa waxaan ku natiijo seegayo oo noloshaydii saamaynaya markaa misdaaqiyadda hadalkaasi iyadoon tixgelinayo qofka igu idhi oo ahaa brofesorkii jaamacaddu iga yidhi imtixaan baad galaysaa dee hadalkiisaasi maadaama yahay hadal la fahmi karayo kana imiday meel dee caqligiisa aan ku kalsoonay oo nin waalan iima soo qorin hadalkan nin fayoobaa iisoo qoray hadalka uu iisoo qorayaana waa maangal hadalkaasi anigu maxaan samayn doonaa waan dadaali doonaa casharadaydii iyo waxaygii iyo intaa jabtaru idhi way ku jiraanba waan iska diyaarin doonaa markaa nolosheedii oo dhan amaba maalmaha soo socdoo dhan waxa aan u dhaqmi doonaayoon u soo jeedi doonaa isku hadlayn aan ka qabo
hadalkiisiion isku hadlaynayo waa ugu dambeynna imtixaankan baan u diyaar garoobaya aduu imtixaankiina waa kaasoo waa galayaa waxaan sidaasoo dhan u yeelayna waa maxay waa ogaalka aan ogahay inay waraaqdani ninkaasi ay ka timiday iyo qofkaasoon ku tuhunsanahay caqli iyo garasho iyo ogaal markaanu leenahay caqligu waa mid ilaahay ka imiday waa sidaas oo ilaahay maxaynu u sugaynaa xakiim baynu leenahay waa caliim oo cilmi kastaanu u sugnay xikmad kastaynu u sugnay wax kastaynu u sugno sifaat aan la koobi karin ayaa uu leeyahay oo wada perfectiya markaynu leenahay laakiin atheismka aynu barbar dhigayno aynu leenahay caqligu waa mid ku imid habka evolutionka ama isbedbediskaas cimileed iyo dhulgariirada iyo raadiyashanada iyo shucaacyada kala duwan iyo duufaanada cimilada isbedbedelaya ayaa siday isku rogrogayeen wax iskaga qarqarxayeen iyo filkaanooyinkaas iyo roobka iyo danabka ayaa ina siiyey caqligaasi waa sidii tusaale anigoo sidaa u joogay dabayli daaqada kasoo gasho oo ay alaab igu soo dur rido oo waraaqday keyboardka ii furan computerkayga ay weerkii ku dul dhacdo badhanadii oo ay iska qorqorto kelmado farabad badan dabadeedna bartanka ay kaga dhex qoran tahay imtixaan ayaad sabtida galaysaa hadalkaasi waa hadal la fahmi karo laakiin ma iga suurowdaa anigoo arkaya sida uu qoraalkani ku imiday iyo hadalkani ma iga suurowdaa inaan isku hadlayo naftayda u soo jeedo oon idhaahdo ilooba ilaa soo jeed waka halka ay kugu qoran tahay weerkaasi markay barkimooyinkii ku dul dhaceen wataa kugu qoran imtixaan baad galaysaaye laabudda inaad imtixaan galayso yacni misdaaqiyad iyo kalsooni ma siinayaa hadalkaasi may ma siinayo taasi maxay kasoo horjeed ku tahay tusaalihii professorkan idin siinayay labaduba hadal isku mid a ii imiday laakiin maxaan midna kalsooni u siiyey ee aan uga dhigay mid nolosheedii hagaysa oo nolosheedii tilmaamaysa oo go'aaminaysa maalintii sabtidii wixii ka horreeyay o dhan sidaan u noolaan lahaa so maalintii sabtida haddaan imtixaan galayo dee jimcihii iyo wixii alle wixii ka horreeyay o dhan maxaan samaynayaa jalud baan dejinayaa si aan imtixaanka u baaso inaan 8 saacadood iyo dheeraad aan maanta wax akhriyo hurdadeedii oo dhan baan nidaaminayaa wax cunkay salaadaydii wax walba maxaan samaynayaa nidaam iyo isbeddel jadwadayn baan u samaynayaa keliya maxaan waxaasoo dadaala u galayaa hadalkaa uu iga yidhi imtixaan baad gali doontaa maalinka sabtida sidaas si lamida makaa suuroodaa haddaba haddii isla hadalkaasi uu barkimooyin soo dhacdhacay iyo dabayshaasi soo ririday oo isku laalaabtay computerkaagii ay kugu dhex qorantay weerkii hadalkaasi sax ha ahaado laakiin ma siin kartaa kalsooni oo makaa suuroodaa inaad labada cishee soo socdoo dhan aad soo jeedo oo aad naftaadii aad soo kadeedo ood jal wadadaadii oo dhan u wada bedasho because of kelmadda yar halkaa ku qoran ah imtixaan baad gali doontaa may labadaasi maxaad midna kalsooni iyo mudnaan naftaadii aad wax uga bedashay aad u gaadhsiisay midna aad u siin weyday iyo ma aragtay inaad isku hadlayso noloshaada inuu kuu hago aad fursad u siiso maba yeelanayaba oo reasonkuna u yeelanayn waxaad ogtahay halka uu ka imiday caqli kugu soo gaadhay dhulgariir iyo dabaylaha isrogrogaya sidaa kelmaddaasi meesha iigu soo qorantay bartankoo kale sida aanan iyadana ugu dhaqmayn ayaanan isagana kalsooni u siinayn oo aanan u rumaysanayn wax allo wixii uu caqligaygu igu hago haddii uu caqligaygu yahay mid ku imiday isbedbedelkaas aan controllerka ahayn ee randomka ah kana imida maxay dabeecadda oo aan caqliba lahayn so qofku faaqidu shay ilaa yucdi caqli ma leh dabeecaddu maxayba kugu deeqay caqli so meel aan caqli ahayn buu ka imiday dabayl ayaa ku qortay keyboardkayga dabayl miyaa imtixaan iga qaadi doonta sabtida oo mudan markaa inaan soo jeedan jalwadkayga u bedelo may laakiin markan hore yaa iisoo diray qof caqligiisana lagu kalsoon yahay yaqaana waxa uu qoro warna u haya calaa cagsiga tii eegaan idiin sheegayay oo wax allo waxaana barkimoynaya alaaba ku dul dhacay midna ma mudna mana taqaano waxa ay qorayaan warna uma hayaan sidaas si lamid ah ayaa ay u kala mudan yihiin iyada ku xidhan tahay meesha uu ka imiday caqligu marka haddaad tiraahdo caqligu waa mid evolution iyo isbedbediskaa ku imiday oo aniga ku idhaahda imtixaan baan diyaarinayaa waayo barkimooyinka iyo dabaylaha soo dhacdhacay ayaa igu qoray keyboardkaygii ay ku qorantay imtixaan baad galaysaa so sida aanan taasi mudnaan iyo kalsooni u siinayn ayaana caqliga kalsooni u siinayn saas darteed innaga uun ma aha xataa darwin aragtidan evolutionka ninkii aasaasay waa yaqiinsaday taas waxaana la dhahdaa darwinis doubt baa la dhahdaa google meel walbaad ku qori karta shakigii darwin baa la dhahdaa darwin wuxuu yidhi haddii caqligeenani uu isbedbedel uu inagu soo gaadhay sidan oo kale oo aynu maanta leenahay daanyeerka waynagaa la yaaban waxaynu kula yaabannahay uu caqli leeyahay baan leenahay ama uu inaga caqli liitaa inaguna waynagana isbedbedel ku jirna weliyo evolutionkiiba inagu socdo wuxuu yidhi hadhow markaynu sii evolve garownayno isa sii bedelno marka evolutionka waan ka hadli doonaa insha allah xalqad ka mid a barnaamijka ka mid tahay aragtidaasi inaynu qaab sayniseed oo mawduuc iyo objective aynu uga hadalno marka haddaba isagu wuxuu yidhi ka waran haddii markaynu iminka 2000 waxaan joognaa 23
3000 marka la gaaro amay kuwa 3000 inta inaga caqli bataan dib inoo soo eegaan ay dhahdaan dhaandhaamintaasi beriga TikTok bay isticmaali jireen ka warama inay dhahdaan yani inay inala yaabaan oo sidan inagu daanyarka ula yaabayno marka uu iyagana isbedbedelku uu ku sii socday inaga heerkan taagannahay laga tago hadhow inta nayla soo eego bilownayla la yaaba waana wax kaa suuroobaysa marka aad aaminsan tahay caqligaaga inuu yahay mid kugu soo galay habkan saas darteed buu isagu misdaaqiyad aanu u siin jirinoo wuxuu odhan jiray waan ka sheegsanahay in qanaacaadka caqligayga ee ku timid habka aan ogahay inay tahay wax mudan in kalsooni la siiyo so marka waxay noqotay arrin caana waxaana la yidhaahdaa darwinist doubt baa la dhahdaa ama shakigii darwin sidaas lamida nin christian apologist ahaa oo atheist inuu ahaan jiray baan filayaa C.S. Lewis baa la dhahdaa ninkaasi wuxuu idhi tusaale buu soo qaatay wuxuu idhi caqliga marka la leeyahay evolution buu ku imiday waxa weeyaan waa sidii ama aan idhaahdo caqliga markaan aad doonayso inaad kalsooni siiso adigoo og sidaas inuu ku imiday waa waxba ma dhaanta buu yidhi adiga oo killi shaaxa inta ood daadisay ibriiqa ama killigaa shaaxa inta dhulka ku daadisay dabadeedna raba dhinaca uu u dhaqaaqay shaaxaasi durduraya dhinaca uu u durduro raba inaad london ay ku geyso yacni waxaan rabaa inaan london tago so london map bay leedahay mapkii london ma garanayo marka maxaan samaynayaa waxaan la kaashanayaa xilligan ayaan rogayaa markaan rogo biyuhu dhinacay u qulqulaan waa dhinacay london iga xigtay garaadkaaga ma ka suuroodaa inaad istiraahdo bas mar haddii biyihii markaan shubay jeegaasi aan ka shubay biyahaasi waxay u qulquleen xaggaa koonfurta marka hadday koonfurta u qulquleenna dee waa inaan koonfurta u dhaqaaqaayo london koonfurtaa ka raadiya kaama suuroodo sidaasi lamida caqliga isgadgadiska iyo habkaa aan ku talagalka lahayn ee randomka ah ee dabiiciga ah ku imiday ma aha mid mudan inaad misdaaqiyad iyo kalsooni siiso sida keliya markaa caqligan aynu ku muxaawiroonayni aynu ku wada hadlayna eed rabto inaad igu qanciseen kugu qanciyo maba jiri karaba haddii uu ilxaadku run yahay hadduu ilxaadku run yahay meel laysku qanciyaa ma jirto oo xorriyadi ma jirto caqliguna waa laazim inuu xorriyad noqdaa haddaad tira caqligu waa maskaxdana maskaxdu xorriyad ma aha xorriyad haddayna jirinana fikirkayga kama tegi karo kaagama iman karo igumana qancin kartid wax kastood samayso waayo natiijo xatmiyaan ku suganahay waa kow talabaad caqligan misdaaqiyad iyo mudnaan iyo kalsooni midna ma mudno haddii aanu jirin ilaahay sida aanu u mudnayn killiga iyo koobka aad biyaha ku shubayso sida aynay kaaga suuroobin inaad maabkii soomaaliya iyo maabkii london aad ku raadiso biyo aad rogtay adiga oo aad eegayso dhinaca ay u qulqulaan sida aanad kalsooni u siinaynin eenad is odhanaynin halkay u qulqulaan baa kugu hagi doonta dhinacaasi caqliguna saasi lamida mid isku hadlayn le ma aha haddii uu yahay habka uu ku imiday fulkaanayaal iyo isgadgadis cimilood oo sidaas inuu geeyay saas darteed mulxidiintu waa kuwa ugu badan ee caqliga la dagaalama ereyo badan oo cajiiba ayaad ka maqli doontaa mulxidiinta sida tusaale ahaan Lawrence Krauss oo kale wuxuu idhaahdaa had iyo jeer caqliga laguma baari karo universekan ama kownkan oo caqligu wuxuu yahay mid keliya u tababaran un ina uu inaga caawiyo how to survive yacni isbedbedelka iyo maaragtay survivalkii badbaadadii duurka sidaynu uga badbaadi lahayn baa caqligeenna loogu talagalay caqligeennani ma aha mid lagu baari karo adduunyadan iyo universekan caqliga muxuu u liidayaa wuxuu og yahay caqliga hadduu misdaaqiyad siiyo ama uu kalsooni siiyo caqliga ka dhigo hoggaan halka laysla aadi doono oo ah caqligow kumaa tahay maskax haddaad noqon weyday oo noqotay shay aan maadi ahaynna dee shayga aan maadi ahayn marka horeabaad ka dagaalamaysood lahayd waxaan material ahayn ma rumaysni ruux ma rumaysni shaydaan iyo jin waayo waa wada waxaan ka samaysnayn maadadaas la taaban karaya kama samaysna waxaasoo dhan buu ka hadlay doodaasoo dhan baa wada burburaysa saas darteed caqliga uu ka cararaa wuuna la dagaalamay ereyadaas buu had iyo jeer ku celceliyaa wuxuuna xayisiis uga dhigayaa empirical science-ka iyo cilmiga tijaabada ah in loo daayo inuu isagoo adduunka discover garayo ereyada kale idhahdaan waxaa ka mid ah sida keliya ee wax lagu ogaan karaa waa cilmiga empirical science-ka ama cilmigaasi wax la tijaabinayo waa sida keliya xaqiiqa lagu gaari karo ereyadaasi yaa idhaahda ereyadaasi waxaa idhaahda mulxidiinta idhaahda qof mu'mina weligaa ka maqli maykid waxaa kaloo idhahdaan waxa xaqiiq ah oo yani wax xaqiiq ah oo run ah oo hubaal loo gaari karaaba ma jirto statementyadaasi hadalaadaasi oo ah kuwa runtii isburburinaya iyagu waxa lagu dhex arkaa un mulxidiinta waxayna sidaasoo dhan u yeelayaan waa kuwa keliya ummadda keliya ee caqliga la dagaalanta taasi waxa weeyaan waa caqligii iyo markaynu ka hadalno markaan waxaasoo dhan sameeyo caqligii sidan ula dagaalaman caqligii misdaaqiyadii kalsooni siin waayo waxyaabahaad ku aragtaan mulxidiinta waxa weeyaan inay ugu dambeyn ku dambeeyaan maxay safsaadi ama skepticismka waxa la dhahdo inuu shaki bato
inuu aad u shaki bato. Waana nin waxaa jirta Rene Descartes oran jiro philosopher ahaa. Ninkaasi wax walba waa uu ka shakiyey. Marka waa ninka mu'asiska u ah falsafada reer galbeedka. Marka ninkaasi Rene Descartes baa la dhahdaa. Wax walba waxa uu ka shakiyo. Wax markii dambe gaadhay heer uu ka shakiyo jiritaankiisa iska dhaafay inuu shakisan yahay oo shakigiisiibu kasii shakiyey. So ugu dambeyn halkaabaad adigu ku dambeyn oo waxba asaasi kari maysid. Iminkana mulxidiintaasi waxaa ka mid ah David Hume, waxaa jirta dhalinyar speakers corners lagu waraystay oo laftigooda halkaasi ku dambeeyey oo caqligoogii marka ay yidhaahdeen sidan buu ku imiday kalsoonina siin waayeen. Wuxuu isleeyahay ugu dambeyn anigu miyaan ahay qof jira oo jiritaankiisiibu ka shakeeyey. Marka dadka lala doodayo waa dad iyaguba inay jiraan aan isku aqoonsanin. Qof aan jiritaankiisiiba sugi karin wax kale ma sugi karo. Marka haddaba mushakikiinta iyo kuwaasi intaanan u tegin caqligan aynu ka sheekaynayno ee aan nidhi waxbuu reason garayaayo wuxuu maadada kaga duwan yahay. Waxa uu kaga duwan yahay maadadu falcelin iyo reaction bay samaysaa oo xorriyad ma leh xeerasha physics-ka haga. Laakiin caqligu waxbuu sababeeyaa. Marka haddaba sababeyntan uu samaynayo caqligu xeerar gooniya oo aan ahayn xeerasha physics-ka uu ku shaqeeyo ayaa jirta. Xeerashaana waxaa la dhahdaa first principles, af carabiga waxaa la dhahdaa mabaadi al-awwaliya ama laws of logic-na waa la dhahdaa. Xeerashaasi waa xeerar aynu dhammaanteen ka simannahay ku dhalano oo fidri ah, ma aha waxaynu kasbanoon baranno. Waxbaynu ku caddayn raadinaye iyaga looma caddayn raadsho. Aqoon la kasbado ma aha, waa wax aynu ku dhalano. Xeerashaas waxaa ka mid ah xeerka la yidhaahdo law of non-contradiction ama xeerka yacni isma diidada. So waxay ka dhigan tahay anigu waxaan joogaa Boorama baa joogaa Boston iyo Boorama dee hal xilli kuma wada sugnaan karo. So maanta caqligaaga kama dhaadhicin karo, kuma odhan karo halkeed joogta haddaad iga tiraan ku idhaahdo Boorama. Haddana aad igu celiso ood iga tiraa halkeed joogta ayaan Boston ku idhaahdo. waxaad leedahay labada mid dooradee labaduba sax ma noqon karayaan. labadaada hadal maxaa sax noqon karaya? midun baa sax noqon karaya. waayo labada hadal maxay yihiin? waa laba isdiidaya. laba meelood oo kala duwan oo sidan u kala fog kuma sugnaan karo hal waqti. So markaasi waa xeer ka mid ah xeerasha maskaxda. xeerka sababeyntu waa xeer ka mid ah xeerasha maskaxda. waxyaabahan yacni waxyaaba u baahan ma aha cadde wax caqligaaga ku wada jira weeyaan. eega wax weyn iyo wax yar ama shayga jabkiisa iyo guud ahaantiisu inay kala yar yihiin oo uu jabkiisu ka yar yahay guud ahaantiisa dee waa wax xeeriyana taqaano oo ma aragtay ka mid ah xeerashaasi aad garanayso. sidoo kale waxyaabahaasi waa yacni inaad naftaada taqaano oo self identity aad leedahay, law of identity iyadana waa xeer ka mid ah xeerashaasi. wax alla waxaas oo laws of logic waxa ay iyagaa waxa lagu iftiinsadaa aqoontaada iyo cilmi iyo wax kastoo maanta aan doonayo inaan kuu sheego waxa ay maskaxdaada u bandhigi doontii waa xeerashan. wax alla waxa information uu kuu gudbinayo oo dhanna muxuu madaxaaga iyo caqligaagu maxay u kala saari doonaan? shayna maangal buu noqon doonaa, shayna maangal noqon maayo. shayga maangal noqon dooni waa shayga ka gudbo dhammaan xeerashaasi. waa shayga aan isdiidayn, waa shayga bilaa sabab wax la idhaahdo ma jirto caqliga. yacni without reason wax iska dhici kara caqligaasi kama dhaadhicin kartid. ma saa doonto uga fikir waxbaa bilaa sabab iska imiday wax maangal kuu noqon kara ma aha. So xeerashaasi caqligan soo sheegnay wixii ka gudbana wuxuu noqdaa un shaygaasi rational, shay maangala. wixii aan ka gudbinna muxuu noqdaa shay aan maangal ahayn. marka xeerashan oo dhani waxay kaa caawinayaan wax alla waxaan hadal ku akhrinayo oo dhan inay u kala saaraan maangal iyo mid aan maangal ahayn. waa objective oo ummadoo dhan baa u siman oo isku afgarata. cidna sideed si maaragtay cidna eega xeerka sababeyntu dee sheekh axmed welina si gooniya uma fahansana, anna si gooniya uma fahansana. oo markuu ileeyahay maxaad ii dhirbaaxday dee ha ii dhirbaaxin uma fahansani oo uma fahansani yacni aniga ahaan wax bilaa sabab la yidhaahdo intay xaggayga ka tahay xaggiisana wax sababeyn la yidhaahdo oo xeer sababeyn la yidhaahdo inuu leeyahay aniguna aanan lahayn kama dhigin. ummadoo dhan baa u siman, waa objective, ma aha wax cid ku gaara cidna ka maqan. waa fitriyo waa lagu dhashaa waa aniga idin sheegay, lamana caddayn karo oo iyaga intaad caddayn soo raadsato dee jiritaankoogaan caddaynayaa inaad tiraahdo dee iyagii baad isticmaalaysaa si aad iyaga caddayntooda ku sugto. so circular reasoning bay noqonaysaa. marka iyagaa wax lagu caddayn raadshaa ee iyaga lama caddeeyo. marka haddaba saynisku xeer ka mid ah xeerashan oo xeerkaa sababeyntan idin sheegay ayaa uu cilmiga sayniska la dhahdo uu ku dhisan yahay. xeerkaasina waa xeerka la dhahdo causality-ga sida uu leeyahay ninka la dhahdo Francis Bacon oo leh saynisku waxa uu keliya oo uu baadhaa. Francis Bacon waa ninka la dhahdan waa aabaha father of modern science ama cilmiga cusub ee sayniska ah aabihii weeyaan ninka idhaahdaa reer galbeedku. ninkaas waxa uu leeyahay saynisku waxa uu baadhaaba sababeynta ama xidhiidhka ka dhexeeya natiijo iyo sababteed. so science waa causality. marka sayniska dhan
ee aynu ka hadalno waxa uu ku salaysan yahay xeer ka mid ah xeerashaas caqliga yani aynu haddeer ka hadalnay ayaa uu sayniska dhanba causality-ga ayaa uu ku salaysan yahay. haddaba inagoo same reasoningka isticmaalayna iyo xeerashaasi isku midka haddana laba natiijo kala duwan waynu kala gaari karnaa. taasina waxay ina tusinaysaa inaynu xorriyad u leenahay inaynu sidan doonno aynu u adeegsano, laakiin waynu isku afgaranaa dhammaantood oo waynu ka simannahay, cidna ku gaar ma aha, cidna kama maqna. waxa kaloo muhiim ku yihiin xeerashani, xor baad u taho independent baad u tahay, bulshadaadoo wada mulxidiina oo aad dhex degan tahay ayaad adigoo isticmaalaya xorriyadda iyo xeerashaasi yacni cid uma daba fadhiisatid. maanta intaasoo waxaad garanaysaa qof oo kaa cilmi badan laakiin kaa madhab iyo diin duwan. so waxaad garanaysaa ninkii Stephen Hawking oo kale wuxuu ahaa theoretical physicist. Albert Einstein muxuu ahaa nin isaguna theoretical physicist. labaduba labo physicska aad ugu xeel dheer bay ahaayeen, culimo ah xagga physicska, ma aragtay dee bugaag iyo wax badanna ka qoray. cilmigaasina aan maanta dee dad badani ayna kula doodeyn oo laakiin iyadoo saas tahay dee maanta inta halkan joogta cid yahuudiya kuma jirto, laakiin Albert Einstein muxuu ahaa yahuudi. so cid ma aragtay maanta isle mar hadduu Einstein yahuudi yahay adna yahuudi noqon, oo uu Einstein hoggaanka u hayo xorriyadii ay ka maqan tahay, oo xeerashan aan u madax bannaanayn inuu isagu reasoningkiisa iyo sababayntiisa goonida ah uu wuxuu doono ku gaadhayay ma jirto maanta. cid walba way u madax bannaan tahay taas. so marka maxaad u leedahay? xor iyo xorriyad ayaad u leedahay. aniga idin sheego waa fitri, waa lagu dhashaa, ma aha wax la barto. haddaba haddii ma aragtay yani mana dafiri karo waxyaabaha yaabka ah waxa weeyaan ma dafiri karo jiritaanka xeerashan caqliga ah. iga raali hada waa runtii waxyaaba badan waa arki karaya inay dadka qaar ku adkaan doonto fahankoogu, laakiin lama dafiri karo, waayo si aad u dafirto waa inaad adeegsataa. tusaalehaan haddaan ku idhahdo xeerasha caqliga ma rumaysni markaan idhaahdo waxa weeyaan ma rumaysni iyo waan rumaystay inay laba kala yihiin, waa inaan kala sugaa. yani markaan idhaahdo ma rumaysni xeerka sababiyada, waxaan qirayaa anigoo ama haddaan ku idhaha xeerashan caqliga waxa la idhahdo ma rumaysni, haddaanan rumaysnin hadalkaasi igamaba suurto golayo. hadalba maba odhan karayo haddaanan iyaga rumaysnayn. oo sababtaanan u odhan karaynin waxa weeyaan ma rumaysni iyo waan rumaysanahay waa laba shay oo kala duwan. labadaa shay inaad kala saartay ku kala duwanaadaanna oo aad mid u doorateena waxaad ogtahay inaynan labadu wada jiri karin, oo midkood uunu jiri karo. دكتور عفوا رالي أهاو أني هذا tusaalaha soo qaadanayna marka anaa ku weydiinayo adina waxaa dhehaysaa maya ma rumaysanay dheh. marka doctora waxaa ku weydiinayaa xeerarka caqliga aan hadda noo sheegays miyaad rumaysan tahay? may ma rumaysni. waayahay waa fahmay inaad rumaysan tahay. may ma rumaysni. hadalkaagii waa fahmay, waxaa ka fahmay inaad rumaysan tahay xeerarka caqliga. may ma rumaysni mas-uul. okay hadalkaagi waxaa ka fahmay hadalkaagi hadda inaad rumaysan tahay xeerarka caqliga. may maba rumaysniba, ma rumaysni. haddaan rumaysanahay ma rumaysni ma idhaahdeen. okay so waa i weydiinaysaa sax maxaa u leedahay? ani waxaa ku leeyahay maba rumaysnay ayaa ku leeyahay, adina waxay leedahay waa rumaysan tahay. ها صح اوكي دي adigii baa waxa weeye waxaa qirtay xeerarka caqliga ayaa qirtay, waxaa qirtay cadam التناقض جمع النقيضين maartay ma isku imaan karaan adaa maartay لا يجتمعان لأن waa rumaysanahay iyo ma rumaysani waa laba shay mataqaanaa laba naqiid weeyaan. marka in iska soo horjeedaan haddaanan kala fahamsanayna kuguma celceliyaan hadalka. marka ku soo insha Allah doctor barakallahu fiik. haddii kale waayo farqi kuma samaynayso, mar haddayna ku kala duwanayn farqi kuma samaynayso. waxayna kugu kala duwan yihiin waa inaad og tahay inay labadani yihiin laba isdiidaya, aanay hal marna ka wada suurto geli karin jiritaankoogu caqliga, inay labadoodaba ay wada jiraan. haddaba waxa weeyaan wax badan markaad aragtaan yani tusaalaha ustaadku bixiyey aan wada matalaynay sheekh cumar runtii aad buu u fiicnaa. waxaan rajaynayaa inuu wax badan oo sharixi lahaa
maanta iga furto. intaas ma ila fahanteen sheekh cumarow? ها دكتور وكله فهمني غادي أد وكله صعنا marka caqliga haddaanu jirin wax garasho ood yeelan karaysaana ma jirto. caqligu inuu madax bannaan yahayna waynaga kasoo hadalnay. hadallada isburinayoo دكتور كانوا سؤال ما ويديا تقدم ما يده يوسف دكتور عدكو بحي يا عمر. ها okay sheekh cumarow waxa weeyaan codka iga ergo-ayo waxba kolba ay soo galay. جمله دول مقلوع laakiin waa ila fahanteen xataa ma jecli inaan haddeer sharxo waqtiga awgeed inaan ka gudbaan jecelahay in hadalladii ay qaldanaayeen hadallada ahaa. waxaan leeyahay calashaan hadallada ah wax xaqiiqo sayniseed lagu gaadho mooyaane wax kale ma jiraan markaan leeyahay waa hadal ها دكتور كسعو ان يوسا سوق وحير سوق burinaya. marka sheekh cumar ها دكتور وكو مقلونا هذا ma la maqlaya هذا waa fasiix weyn ها ku soco sax okay haddaba waxaynu soo sugnay haddeer waxaanu isla garanay waxyaabahan soo socda. kow, marka caqliga iyo jiritaanka ilahay baynu ka hadlaynaa. waxaynu isla sugnay caqligu inuu yahay mid xora oo maaragtay maskaxduna ay tahay mid material oo maada aan xor ahayn oon dhinaca looga bixi karin xayndaabka xerasha fisigiska. waxaynu laba isla sugnay inuu caqligu xor noqdo ay daruuri tahay si natiijo xaqiiqa ah loo gaadho waxna loo kala dooran karo. caqligu دكتور وكاغو هذا in inay isku raacaan inuu caqligu ahayn mid material ah. ta afaraadaynu kasoo hadal qaadnay way haddii kale laysma qancin karo nafig codkii uu soo laabtay hadda دكتور codka ugu baxay hadana mid aan afraad cilmi baaris sayniseed oo caddayn ah ayaan usoo qaaday inuu caqligu aanu ahayn maskaxda. tashanaad, caqligu bilaa ilaah qiimo ma yeelanayo oo tusaale waaniga idinku soo tusay oo dabeecaddu caqli male kugumana deeqi karto waxayna iyadu lahayn. ta lixaad, haddii yacni xataa ay kugu deeqdo oo dhulgariirka iyo yacni isbedbedelka cimireed uu yahay mid yacni kugu sidaas uu yahay mid caqliga kugu yimid kalsooni ma siin kartid mana aha mid aynu maanta masiirkii iyo alla ma jira iyo ma jiro so aynu go-aankeeda ku gaari karno ma aha caqliga sidaasi ku imiday. ta toddobaad, dafiraadda xeerasha caqligu waali ayay yacni kugu dhalisaa oo haddii aad diido dee noloshaada wax alla waxaad sugi kartaa ma jirto. ta u dambaysa sideedaad, saynisku ma ahayn waddada keli ah ee wax lagu gaari karo ee waddooyin badan ayaa jira. waddooyinka badan ee wax lagu gaadhana waxaa ka mid ah naqliga iyo testimoniga eega nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo nabiyullaahi ciisa jiritaankoogii khabar iyo war buu inagu soo gaadhay taariikhda ku qoran. dagaalkii labaad midkeenna ma jirin ee adduunka dhammaanteen maxaynu ku haynaa taariikh baynu ku haynaa iyo sooyaal. aabbahay iyo awowgii aabbahay waa gartay laakiin awowgii ma aansan arag laakiin inuu jiro ina hebel la odhan jiro geel ku ilaalin jiray halkaa iyo degmada tuulada waxaan ku ogahayn ku sugayay waa maxay waxaan ku sugayay waa khabarka iyo informationkaasi taariikh ahaan igu soo gaadhay. caqliguna waa mid isaguna aqoon kororsi wax ku kasbato. waxyaabo kaloo wax ku kasbato waxaa kamid ah sayniska oo isaguna tijaabadiisa aad wax ku gaadho. intaa markaynu ka hadalnay already intaasoo qodobna aan isku soo raacnay. waxyaabahaynu ka hadlayna waxa weeyaan oo labada qodob aynu kasoo hadalnay soo hoos galaya waxa weeyaan maadaama caqliga uu sababeeyo oo uu sababeyn sameeyo ma yahay ka waran meesha la dhahdo quantum physicska miyaa uu yahay mid isagu kasoo horjeeda oo burburiyey oo maxaan ku idhahdaa yacni causality-gii ma burburiyey xeerka sababeyntu
xeerka sabaynta ma ku burburay marka quantum physics-ka la tegay. Doodaasi in badan waa ay socon jirtay oo waxa lagula dagaalami jiray oo la odhan jiray waxa la idhaahdo sababayn ma jirto maadaama quantum physics-kuba uu yahay meel bilaa sabab ay wax iska dhici karaan. laakiin Schrödinger ninka la idhaahdo oo Nobel Prize ku haysta cilmigan quantum physics-ka waxa uu buuggiisa la idhaahdo Philosophy of Constant Chance ku qoraya uu leeyahay waxa uu cilmigani lid ku yahay oo uu burburiyey waa waxa la odhan jiray determinism-ka ama doodii ahayd ina ay wax walba ay yihiin wax go-an oo hagan oo determinism ayaa ay burburisay laakiin ma aysan burburin maxaan ku dhahaa sababaynta oo shaygu hadduu bilaa sabab yahay it will cease to be science. shay bilaa sababa lamaba baari karaba marka cilmi iyo saynis ba noqon maayo iska dhaaf in la yidhaahdo waa cilmi dhan oo quantum la yidhaahdo loo bixiye marka shay bilaa sababa ma jiri karo bua uu ku leeyahay. sidoo kale waxa uu leeyahay principle-ka dhan ay ku salaysan tahayba waa uncertainty ama principle of uncertainty oo ah mid ka mida mabaadi'da lagu baaro cilmigan quantum physics-ka taasoo lid ku ah aragtidii ahayd determinism-ka oo waad arki doontaan taariikh bay leedahay iyaduna halkan aanan kusoo koobi karin oo dheer isbarbardhigga determinism-ka iyo principle-kan la yidhaahdo uncertainty-ga marka waxay ku salaysan tahay inaan waxba yaqiin la gaari karin marka la joogo quantumka iyo particleska aadka u yaryar waana cilmi runtii aad u ballaaran iskana maaragtay ad adeegiisa iyo waxyaabo badan leh laakiin ma aha mid isagu burburiyey xeerka sababeynta. ta kale jirta waxa weeyaan dadka ama atheists-ka qaar waxyaabo dooda oo ay idhaahdaan ayaa jirta oo ay ka mid tahay yani waxay idhaahdaan haddii ma aragtay eega waa xeer caqli ah markaynu leenahay waxbaa jira oo adduunkii ah oo ma aragtay result iyo natiijo ah ayaynu haynaa sabab baynanu u raadinayna marka wax walba oo sabab leh wax walba oo soo xaadisay ama soo darriyay oo imiday wuxuu u baahan yahay sababayn iyo in laga sal gaadho oo waxa uu leeyahay sabab ayaa uu leeyahay natiijo kastoo timiday cause bay leedahay markaynu leenahay waa wax waafaqsan xeerasheenii caqliga marka waxay idhaahdaan haddaba haddii ay saas tahay oo xeerkani sidaa yahay ka waran haddii aan idhaahdo ilaahayna yaa sababay ama ilaahay laftigiisa yaa abuuray haddii aad leedahay ilaahay isagaa sabab u ahaa natiijadan adduunka ee aynu hayno taasi waxa weeyaan mid iyaduna waa qaab qaldan oo loo adeegsanayo xeerashan waana su-aal iyadoo laftigeedu isdiidayso idhaahdo yaa abuuray ilaahay dee ilaahay by definition waa maxay waa lama abuuray haddaan ku idhaa lama dhalaha yaa dhalay lama dhalaba lama idhaahdeen haddii la dhalay ama waa lagu dhalay ama laguma dhalin so haddii lama dhalay aan kugu sheegay inaan isweydiiyo su-aasha ah yaa dhalay waa mid qaldan marka waa su-aal asalka ahaanba qaldan ta kale waana dee lama abuuraha yaa abuuray aniga ku idhaahdo ta kale wax kaste ma raacdo had iyo jeer sidan uma soconayso su-aashu yacni okay yaa halkan abuuray ilaahay baa abuuray ilaahayna yaa abuuray so saas in wax loo sii waday qalad baa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa tusaalahaan haddaan ku idhaa wax walba hadday biyuhu hadday wax walba radiyaan biyaha laftigooga maxaa qooya biyuhu hadday wax walba qooyaan iyo waa su-aal qaldan sidaas lamid ah haddii aan idhahdo ilaahay wax walba abuuray ilaahayna yaa abuuray waa sidaas lamid ah sida ayna kaaga suurtoobin ta kale haddii maaragtay la idhaahdo iyaduna qalad ka dhalanaya haddii la idhaahdo ilaahay yaa abuuray waxaa ka dhalanaysa in la idhaahdo abuurihii isagana yaa sii abuuray isagana yaa sii abuuray ilaa heer la gaadho aan dhammaad lahayn heer aan dhammaad lahayn inaanu jirinna waxaan ku garanaynaa inagaa joogno oo natiijo ah oo natiijadan ah adduunyada abuuranaya noloshani ee aynu abuurka u sugnay dee ma suurto gasheen haddii uu abuurihii keenayna uu abuuro kale u baahnaa abuurihii kalena abuuro kale u baahnaa ilaa heer aan dhammaad lahayn silsilad aan dhammaad lahayn marka waa sidii tusaalaha culimmadeenu bixin jireen ka mid ahaa nin haddii maanta la idhaahdo dil baa lagu xukumo dilkii ha lagu fuliyo dabadeedna uu askarigii tooganayo idhaahdo ma tooganayo ilaa amara ka sugo wasiirkaasi gaashaandhiga ilaa taliyahan amar ka sugo taliyihii idhaahdo wasiirkii gaashaandhiga wasiirkii difaaca madaxweynaha heer aan dhammaad lahayn ma dhici doontaa marna in ninkaasi dilka lagu fuliyo may dilka goormaa la fulin keliya waxa uu fuli doonaa dilkani marka la ogaado mid isagu iskii go-aan qaadan kara isaga oo ka madax bannaan intooda oo aan cidna isagu ka sugin amar saas darteed waa inay yeelataa meel silsiladani ay kasoo bilaabato si natiijo oo loo gaadho iminkana maxaynu haynaa natiijo ah inay nololi jirto adduunyana jirto saas darteed maxaa meesha ka baxay waxaa meesha ka baxay
in silsilad dheer ay sidaas u socoto oo sidaasoo kale amara la iskaga sugsugayo ama la isku soo abuurayo heer aan dhammaad lahayn. ta kale haddii lagu idhaahdo yani ilaahay yaa abuuray, waa sida adigoo hotel galay oo maaragtay lagu keenay furun duban, dabadeedna aad tiri yaa dubay furunkan, hebel baa dubay, hebelna yaa dubay inaad tiraahdo makaa suurooda? kama suuroodo, waa su-aal qaldan. in furunku duban yahay kama dhigna in hebel la dubay, in aad adiga lagu abuuray kama dhigna in ilaahay la abuuray. so sida aynay kaaga suuroobin in cuntada halkan la kariye marka lagu idhahdo cookerkaas Mr. Hebel oo madbaxa ku jira ayaa kariyey, sida aynay kaaga suuroobin inaad tiraahdo hebelna yaa kariyey. de waad og tahay in cuntadan la kariyey, kama dhigna in hebel lasoo kariyo uu maaqla saarnaa 5 sano u dambeysay, kama dhigna. so marka waa su-aal yani qaabkaa marka loo dhigo waa qaabkaas lamideen idinku tusaaleynayo, waana qaldan. laakiin waxaad odhan kartaa iisoo yar dhadhawee, sidee bay ku suuragal noqon kartaa ina uu ilaahay abuuro isagoon u baahan abuuray? tusaale yaroo dhow haddii aan kaa siiyo oo u dhadhow, waxa weeyaan kasoo qaad haddii aan imaado gurigayga oo walaalkay iyo laptopkayga ay miiska wada yaalaan, dabadeedna aan salaada u baxo. marka aan soo noqdo haddii aan laptopkaygii waayo, waxaan odhanayaa laptopkaygii yaa qaaday ama yaa durkiyey, waayo waxaan ogahay inaa uu ilaa la durkiyo mooyaane aanu isagu durki karin iskii. laakiin haddii ka waran markaan soo noqdo aan u imaado walaalkay oo miiskii aan fadhin, ma iga suurooda inaan idhaahdo yaa qaaday oo halkee la dhigay walaalkay? may, waayo maxaan ogahay inuu walaalkay isagoon u baahan in la qaado uu iskii u qaaday, uu iskii yani u dhaqaaqi karo, u socon karo. sidaas si lamida in ma aragtay adiga lagu abuuray kama dhigna inuu ilaahay la abuuray. sidaas si lamidana ilaahay wuxuu awood u leeyahay in isagoon cid abuurta u baahan uu isagu wax abuuri karo, isagoon u baahan cid abuurta. ta kale waxaa jirta caddayn noocma ah ayaa qofka atheistkii u rabaa. in badan markaan baadhaynay caddaymuhu noocyo kala duwan bay leeyihiin. qaar waa mathematical oo waa xisaabaad, qaar waa caqli oo waa rational oo maaragtay waa iyadoo si mandiqiga laysku qancinayo, caqliga aynu kasoo hadalnaya weeyaan. caddaymaha qaarkood waxa weeyaan kuwa ku salaysan sayniskaas tijaabada ah oo inductive philosophy-ga ah oo maaragtay tijaabo iyo kuwaasi ku salaysan oo saynis ah oo experiments u baahan. caddaymaha u dambeeyana maxay? waa kuwo xisi ah, kuwa ugu liita ah oo ah kuwa ku salaysan taabashada, aragga, maqalka, kuwaasi in wax lagu sugo. marka caddaymahaasi aan soo taxay, nooca ugu liita horta markaynu leenahay nooca ugu liita intoodaasi, inductionkan eegaan idiin sheegay saynisku uu ku salaysan yahay waa anigoo ku idhaahda ega deegaankan deganahay, dee ariga loo yaqaano idaha ama laxaha waa xoolo qoor madow. marka haddii wax alla waxaan ari arkay intaydan oo dhan waa wada qoor madow yihiin. marka haddii aan idhaahdo conclusion ama go-aanan gaadho ah dhammaan wax alla wixii lax ah waa mid wixii qoor madow unbaa lax ah, de waa hadal isburburinaya. go-aanka maxaan ku gaadhay? de halkan anigoo aan joogo wax alla wixii neef ah ee lax ah waa wada qoor madow yahay. taasi ma diideyso in maka kuwa joogay ay noqdaan kuwo qoor cas. marka maxay ku tusinaysaa inaan go-aankaa ku qaatay un in alla intii observation aniga ay ishaydu arkaysay un. saas darteed inductionka uu sayniskaasi u yahay, sayniska uu ku salaysan yahay induction oo observationka iyo kolba intaad aragto unba uu ku xidhan yahay. marka the more samplekaagu ay sii weynaato ay aad u taageerso conclusionkaagana waa strong induction buu noqonayaa, mid aad iyo aad u xoogan buu noqonaya. haddii jawaan lay keeno wada tufaaxa oo aan 100 tufaaxi ay ku jiraan oo 99 xabo aan soo saaray wada casaan yihiin oo lay weydiiyo ta ku xigtii maxay noqon doontaa? de haddaan idhaahdo casaan iyo haddaan idhaahdo akhtar, midkee baan u dhow yahay inaan saxsanaado? waxaan u dhow yahay inaan saxsanaado markaan idhaahdo waa tucas ta ku xigtee 100aadna. waayo intaasoo dhan baan soo faqay, intaasoo dhanba maxay ahaayeen? intaasoo dhanba waxay ahaayeen kalar casaana ayay wada ahaayeen. marka waa philosophiga inductionku saas bay ku salaysan tahay. ta u dambaysa waa caddaymahaasi xisiga aad iyo aad bay u liitaan. si fudud baa lagu qaayimi karaa dawooyinka qaar haddii lagu siiyo maandooriyaha oo idinka arkay, qofka hadduu mirqaamo wax aan jirin baa u soorma. qofka waalan wuxuu la waalan yahay dee waxaan dadka u muuqan ayaa u muuqda oo uu la sheekaysanayaa. marka xisigu runtii waa kuwa ugu liita, si fudud baa lagu qaayimi karaa. waxa weeyaan waa limited oo uu kooban yahay. so ega ishaydu dee rasaas ordaysa ma arki karto ishaydu, waayo rasaastu maxay dhaafsan tahay? xayndaabkii iyo xadidaadii ay aragtideedu qaban karaysay way ka sarreysaa. gorgorku inta ay araggiisu gaadho dee ishayda iyo araggaygu ma gaadho oo waa uu iga arag dheer yahay. bal xataa bini aadamku iyagaaba kala aragti dheer oo looma sina. marka xataa haddii la odhan lahaa aragti iyo ma aragtay waxa lagu sugo
dee araggii looma sinna araggii looma sinno oo maxaan nidhi araggii waxaan loogu sinay ninna 2 mitir buu ka arkaa midna waa odaygaa aan waxba aragin muraayadda xidha midna waxa weeyaan ninkaa 70 mitir wax ka shiishi karaya wax arki karaya mar haddaan loo sinayn haddii ilaahay aragtidiisa haddii ilaahay jiritaankiisa aragti lagu sugi lahaa dee looma sinaadeen waayo araggiiba looma sinno ta kalena markaynu ka hadlayno jiritaanka ilaahay iyo aragti in lagu sugo wax kada madax bannaan abuurkaas adduunka ah maanta yacni ayaanad ishaada ku koobsan karin iska dhaafe ma aragtay badda adigoo fuushan markabka halkay ku dhammaanayso ishaadu ma gaari karayso ma arki karayso yacni ma koobsan karaysaba abuurkii uu ilaahay abuuray iska dhaafa kii abuuraye aan lahayn waqti aan lahayn space koobta aan lahayn waxaasoo dhan inay koobto seed uga filaysaa mar haddayna makhluuqaadkii iyo abuurkii aanad ishaadu ayna wada gaari karayn oo space ahaan ay limited tahay intay ishaadu gaadhaysii ay kooban tahay dadkiina uma sinna markaa laakiin dadkii maxay u siman yihiin caqligay u wada siman yihiin dadku maxay u kala baxaan markay caqli noqoto nin waalan iyo nin hagaagsan ilaahay markaa naxariistiisa nin waalan kuma kalifinba ina uu isaga barto yaa lagu kalifay ina uu ilaahay wax ka ogaado oo uu baadhbaadho cibaadaysto qof caaqil ah qofka caqligalana maxaa ay ka wada siman yihiin baan nidhi dhammaantood waxay wada leeyihiin xeerasha caqligeena soo wada hadalnaya wada fidriga ay ku wada dhasheen marka iyagu waa kuwa ugu liita haddii dawooyinka qaar lagu siiyo wax aan jirin baa kuu soo hormi kara si fudud baana lagu qaayimi karaa xisku markaa liidashadiisu aad ayaa ay u liidataa marka mulxidiinta inta ugu badan ee berigii hore iminka badana ma arko waa dhici kartaa inaan muddo yani ka maqnaa waxay odhan jireen itus iyo imaqashii oo ta ugu liidata ah ta kaley adeegsadaan waa maxay inay idhaahdaan scientifically jiritaanka ilaahay ku caddee iyaduna waa saynisku muxuu baadhaa saynisku wuxuu baadhaa wixii la tijaabin karo ee maadi ah ee materiala ee xeerasha physigiska u hoggaansan unbuu saynisku baadhaa ilaahayna ma aha wax aragti iyo ma aragtay xiskaasi lagu sugay ma aha saas darteed saynis looma bandhigi karo sayniskuna ma baadhi karo laab aad soo qaadi karto oo aad abuurkan oo dhan abuurkiibaaba laab loo wada bandhigi karin siduu u dhan yahay abuurihiina iska dhaaf marka yacni waxaad experiment iyo tijaabo aad ku samayn karto ma aha ilaahay marka inaad tiraahdo ilaahay igu caddee scientific ahaan waxay ka dhigan tahay tusaalihii aan idin siinaya ahaa inaad kabriid shido duhur cad oo tiraahdo ebceedda igu tus kabriidkan aragtida iyo muuqa ebceed waa mid ka weyn iftiinka waxa weeyaan sidoo kale waxaan kusoo gabagabeynayaa inaguna laftigeenu caqliga ayaanu ka qiimeynaa qofka xiska so haddii maanta xil la yidhaahdo yaad dooranaysaan nin hagaagsan nin arag fiican oo xiskiisu dhammaystirayo maqalkiisu maqalkii uu yahay shabeelka araggiisuna araggii gorgorka uu yahay iyo oo laakiin waalan iyo nin indhalo oo hagaagsan midkeebaad dooranaysaan haddii la yidhaahdo madaxweyne keedu dooran lahayden I think jawaabta inagu waa isla wada garanaa marka inaga laftigeenu caqliga ayaynu ka qiimeynaa oon aad u tixgelinaa marka loo barbar dhigo xiska iyo aragtida oo haddii aynu aragtida aad ugu nahay qofku ka arag dheer yahay ayaynu xilka u magacaabi lahayno markan Joe Biden iyo Donald Trump la kala dooranayay waxaa la isku keenay dood ay ku doodaan doodaasi maxaa laga dan lahaa waxaa laga dan lahaa in mid walba la arko caqligiisa iyo garaadkiisa lagu qiimeynayo haddii kaloo maaragtay xiska la tijaabinayo xiska hoggaan lagu dooranayo ummad lagu hagi karayo arag iyo maaragtay maqal qura oo caqliga laga tegi karayo dee labadoodaba inta halkaa muraayad lasoo dhigaa la odhan lahaa kiineebaa si fiican wax u arkaya dabeedna midba midku ka arag fiican yahay ayaa la dooran lahaa haddaba waxaanu ka soo hadalnay oo aan kusoo gabagabeynayaa waxyaabo badan oo runtii aynu soo cadayna baa jirta waxyaabahaynu nidhi waa in caqliga uuna ahayn shay maadi ah waa mid aynu soo cadaynay taa laftigeeduna ay tahay mid meesha ka saaraysa materialismka ama atheistic materialism ilxaadka maadiga ah caqliga keliya ee wax abuuran iyo wax aan abuurnayn ku odhanaya ma kala saari karayaan waa caqliga mulxidka waa ka keliya ee ma aragtay ay iskaga qaldami karaan wax abuuran iyo waxaan abuurnayn marka waxaynu soo cadaynay inuu caqligu ahayn material u hoggaansan xeerasha physigiska oo sidaas darteed aanu ahayn maskaxdu ay tahay iyadu maado sidoo kale inuu caqligu maskaxda adeegsado oo isagu maamulo baynu soo adeegsanay ka hadalnay inuu caqligu haddaan ilaahay jirin qiimo yeelanayn sidoo kale inuu saynisku ku dhisan yahay xeer ka mid a kuwa caqliga oo ah xeerka samaynta xeerkaas oo haddaanu ilaahay jirin aan qiimo yeelanayn markaas horumar kasta oo saynisku gaadho waa mid runtii guusheedu ay usoo hoyanaysa un iimaankaasi maadaama isku hadlaynta caqligan la siiyey baa ka kasbaday
jiritaanka ilaahay in ay yihiin mulxidiinta kuwa yani caqliga la dagaalama ereyadii aan soo nidhina waa kuwa tusaale idinku filan in caqliga mulxidku yahay ka keliya wax abuuranay waxaan abuurin iska shaki galaan waa ka soo hadalnay sidoo kale waxaynu nidhi caqliga aynu adeegsano iyo maaragtay ama inay yani iska galaan laba shay oo caqliga keliya ku kulmaan shay abuuran iyo shay aan abuurnayn ma garanayo waa ka mulxidka weeyaan waxaan caddaynay sidoo kale inay cadeymaha ugu daciifsan iyagoo raadsadaan ay kamid tahay empirical science-ka tijaabada ah iyo kan dareemayaasha sida fudud lagu yani qaayimi karo sidoo kale in dafiraadda ilaahay la dafiro ay tahay mid aan yani caqli ku dhisnayn oo xataa mulxidiinta kuwa ku hagta inay ugu dambeyn ku dambeeyaan skepticism oo ay jiritaankooga iyo wax walba ay ka shakiyaan nin aan naftiisii inay jirtana aan sugi karayna cid kale iyo wax kale jiritaankii kama hadli karo sidoo kale in silsilad dhacdooyin oo soo jiitamaysay oo aan xad lahayn oo ma aragtay infinite regress ah ay impossible tahay waynu kasoo hadalnay oo waxa ka turjumaya waaqican aynu joogno oo natiijo ah jiritaankeenu markaa waa natiijo ka markhaati kacaysa inayna jirin yani silsilad aan dhammaad lahayn oo dhacdooyin ah oo mid walba sidii aynu tusaalihii usoo qaadanay nin walba uu nin amar ka sugayay si dil loo fuliyo waxaynu sidoo kale ka jawaabnay su-aasha ah ilaah ayaa abuuray oo inay qaldan tahay aynu caddaynay qaab caqliyeeda runtii waa igu dheeraaday waxna waa ii dhinaayeen intaabaan doonaya insha allah inaan kaga baxo xoogaa kool yarba ay soo ergelaya waa idinku soo yar celin waa idinku soo noqon haddadanba أيه جزاك الله خير dhegeysiga بارك الله فيك